maxaad noo keentay naga aamu afkiis ku qabo hadalada wanaagsan ee igula hadlayso waad ku mahadsan tahay mar hore ayaan kuu sheegay waxaad oran doonto jihana anigu kun jeer baan kuu sheegay anigu nacas ma yihiin aslaan waa ku bariyaa kiiska jihan kartaa kiga saar aniga يا هاندا idinka raali laba mir ma siin kartaan Zainab laakiin sababta ma ii sheegi kartaa ii sheegtay idageysa walaashay oo imtixaan ay isku diyaarinaysaa anigu inaan caawiyaan doonaya marka waa ku bariyaa hawshan iga dhex saar aniga ma doonayna ku sidii sababan kaga dhex saaray sheeg qofka ugu horeeyay codsaday waxaan ku kiiskayga la shaqeynaya tahay waa runta laakiin si aslaan maya idageysa baan ku anigu waan ogahay ilaa maalintaad kuliyadda ka soo qayb gashay indhahaasaa kugu hayay maalinta soo qalin jibisay waxaan idhi gabadhaas askariyad khatar ayay noqonaysaa hawsheedana weliba way ka soo baxaysaa ayaan dadkoo dhan ku lahaa bal ka warran marka hawshan maanta inaad qabato miyaanay ahayn waan ogahay anigu waxaan ahay gacanyarahaaga ugu wanaagsan waa si wanaagsan mar haddii saa tahay hawsha qabo laakiin saaslaan mushkilad kale ku haysatay sheeg laakiin saanaan doonahayn hawshaa maya baan ku yidhi waad qabanaysaa hawsha waad qabanaysaa iminkana anigay soo raac aslaan waxa weeyaan ma taqaanaana handa adigu jihaan karataag ayaad gudaha la gelisaa su'aalahan wada weydiinaysaa Zainabna wayna caawinaysaa sidoo kale aslaan ma doonaya anigu hawsha anigu waan hubaa gabadha yar la leeyahay jihaan gacantiisa unba ku jirtaa kulay kaala imika wabad nagu cusubtay ma hawsheeda na baraysaa adigu ayar xaga dhiga baan ku odhan lahaa waa sidee musalsalkan iyo waliba musalsalo kale oo lagugu soo turjubay luqadaada hooyo ee afka Soomaaliga waxa aad si toos ah markaa uga daawan kartaan safifilms.com hay soo fadhiiso adigoon waxba i weydiin ayaan ku warramayaa